maanta waxaan inii wadaa afar fursadood oo aad kaga faa'iideysan karto lacagtaada inay kuu shaqeyso adigoon wax shaqo qabanin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا دمانتين سو دواada ayaan leeyahay channel kan saad uga barateen waa channel ganacsiga qaybihiisa kala duwan aynu kaga hadalno bulshada qaybaheeda kala duwan aanu faa'iideyno. maanta waxaan inii wadaa afar fursadood oo aad kaga faa'iideysan karto lacagtaada inay kuu shaqeyso adigoon wax shaqo qabanin. haddii aan si kala dhigo hadalkayga waxaan ka wadaa dabcan lacagtaada ama dhaqaalaha aad haysato ee aad meel dhigato in aad lacag ka sameyso ayaan ku wadaa afar qodob oo aad kaga sameyn karto aad kaga faa'iideysan karto shaqooyinkan adigoon wax shaqo qabanin ayaad lacagtaada gelinaysaa kadib lacag ayaad ku helaysaa adigoon time ka gelin waqtina ka gelin hawlna ka gelin. afarta qodob haddii aan ni kala sheego qodobka koowaad waxa uu noqon karaa oo aan isleeyahay aad iyo aad bay faa'iido tahay oo inta badan dadku iminka ay ka faa'iideystaan waa inaad gaadiid wax iibsataa. dabcan gaadiidku badan yahay dabcan haddaba muhiimaddu waxay tahay tusaale iminka haddii aad iibsato gaari weyn oo fiigasa oo lacagtiisu meelaha 780 gaari karto 1000 waxay kuu suurtagelin kartaa inaad gaariga bil kasta kaaga soo xarooto lacag aan ka yarayn $1000 oo ay hay'ad ka kiraysato ama aad ka dhigto mid transportation baa u baxa magaalo ka magaalo ama aad ka dhigto mid magaalada ka dhex shaqeeya oo ay dad lacag leh ka kireystaan. dabcan gaadiidka fiiga soo kaliya maaha sidoo kale waxaad maal gashan kartaa inaad iibsato gawaari taksiya oo magaalooyinka ka shaqeeya. taksigaas wuxuu kuu saamaxayaa in aad lacag ka hesho daily maalin kasta oo aad kaliya intii aad iibsatay aad ku bixinayso adiga hawl kale aysan ka gelin. dabcan taksiga markaad iibiso waxaad u qabanaysaa dilawarkaas maalin kasta waxa uu kuu soo hinayaa adiga lacag gaaraysa haddii ugu yar tahay $10. waa faa'iido lacagtii ka gashay waxaa dhici kartay inay meel ku taalo aysan lacag shaqeyn haddii aadan account dhigato aad meel kala dhigato balse haddaad nidaamkan uga faa'iideysato waxaan waa inaad ka faa'iidi karto. sidoo kale gaadiidka waxaa kamid noqon kara gawaarida waaweyn ee iskarogtada ee dhagaxaanta qaada. runtii saan wada ognahay aqal kastoo la dhisay iskarogo ayaa ka shaqeysa iyo gawaarida booyada la yiraahdo biyaha lagu dhaamiyo. hadda waxaad kaga faa'iideysan kartaa gaadiidka noocyadiisa kala duwan lacagtaada. qodobkan koowaad sidoo kale waxaad iibsan kartaa goobataata ayaad iibin kartaa dilawar baad u dhiibaysaa sidii taksiga oo kale maalintii lacag ugu dhawaad ugu yaraan $10 ayaa fadhiga kugu imanaysa. bishii waxaa dhici karta inaad $300 fadhiga ku qaadato adigoon waxba qabanin. sidaas aad ku macaashi kartaa lacagtiyeeda gelisay waxaad u bedeli kartaa lacag weligeed soo xarooraysa. haddii aan qodobka labaad u gudbo aan isleeyahay waa fursad aad lacagtaada aad lacag kaga soo saari karto adigoon wax hawla qabanin. waxa uu noqonayaa inaad guri dhistaa. guri ayaad dhisanaysaa kadib waad kireynaysaa. runtii taas waa la isku raacay oo maanta dad badan baa ku dhisanba oo guryaha intay dhistaan fadhigooga lacagta ku cuna. waxaan oran karaa iyaduna waa fursad labaad. sidoo kale waxaad sameyn kartaa inaad dhul iibsato kadibna dhulkaas sanad ka bacdi aad iibiso. waxaa suurtagal ah intii aad ku iibsatay dhulkaas in labilaabkeeda in aad ka faa'iido sababtoo ah dhulku maalin kasta qiimo ayaa ku kordha sababtoo ah meeshii place-kii aad iibsatay maalin walba qiimaheeda siyaadaya. waxay intaas micnaheedu tahay in maalin walba magaaladii sii weynaanayso ay horumar sii gaarayso dhulkii u yaraanay dadkii meel degan ay adkaanayso kadib waxa dhacaysa lacagta ku isti ka badan inaad ku iibiso. sidoo kale dhulka laftirkiisa ayaad kareyn kartaa oo dad baa meherada sadaqada iyo waxyaabo ay koodiyo dukaamo iyo
dukaamada yar marfashka la yidhaahdo waxaas ka samaysan kara dhulkii oo bannaan ayaa haddana kira keeli karta lacag kira haddana qodobka saddexaad aan isleeyahay waad ka helaysaa lacag adigoon howlba kaa gelin waxa uu noqonayaa inaad soo iibsato qalabka guryaha lagu dhiso ayaad soo iibinaysaa sida taangiga biyaha lagu shubo sidoo kale mashiinada yaryar ee dhagaxaanta jajabiya sidoo kale dabaq marka la dhisayo waxaa jira baala sagxada la yidhaahdo loo taago dabaqa oo lagu istaajiyo dadka ay koraan dadka dabaqa dhisaya adoo wax badan aan soo koobi karin baa jira waxyaabahaasoo dhan materialka dhan ee guriga dhismihiisa import ka ah ayaad tiijinaysaa kadib waxaad la xiriiraysaa injineerada guryaha dhisaa kadibna waxaa kuu suurtagelaysaa ama shirkadaha guryaha dhisaad la xiriiraysaa waxaad markaa halkaa ka samayn kartaa lacag fursad weyn way kaa soo geli kartaa waxaana dhacaysa in daily lagaa kiraysto haddii bishii oo keliya lagaa kiraysto 4 mar waxaan ogahay inaad ugu dhawaan lacag 400 ama 300 aad helayso taasina waa qodobka saddexaad ee isleeyahay waad ka faa'iideysan kartaa lacagta aad haysato adigoon waxa ula kaa gelin haddaba qodobka afraad ee aan isleeyahay fursadan waad kaga faa'iideysan kartaa adigoo wax shaqo ah aan qabanin waxay tahay inaad maal gashato shirkad la aasaasay ama mid hore u jirtay oo la dib loo sameeyo howlo lagu soo kordhinayo ama mid caadi oo jirto oo imika loo baahan qof shuraaka dabcan shuruud ma aha inaad shirkad kasta aad ku biirtaa balse waxaa muhiim ah inaad dad aad aaminto oo aaminaad hesho markaad qof aamin hesho oo company-gaas aad la shuraakoodo taasina waxaan oran karaa waa qodobka afraad ee aad lacagtaada lacag ku sameyn karto sababtoo ah company-gaas waxaa laga yaabaa inaad ku darsato lacag 3,000-4,000 gaaraysa kadib company-gii uu ku ogolaado 50% ilaa 30% inaad macaashka company-ga aad la qaadato taasina waxay suurtagelin kartaa lacagta yaraad gelisay inaad 2 marood la qaybsato faa'iidadii ka soo baxday ganacsigaas ay noqoto lacagtii aad marka hore gashatay kadib haddii wixii intaa ka dambeeyana aad faa'iido qaadato lacag ku socoto faa'iido rasmi ah intaas afartaa qodob ayaan jeclaaday in maanta inay la wadaago oo aad ka faa'iideysan doontaan lacagaha aad u haysataan dhaqaale ahaan inaad ka soo saartaan lacag oo aad isku daydaan inagoo gurigiina iska fadhiya inay lacagtaas inay shaqeyso bulshada qaybaheeda badan dad waxay jireen bika xoriyad jacayl ah oo aynay shaqeeyaan baan jecleen haddaba qaabkay ku shaqeystaan baad isla dabcan haddaba waa qaabka nimka aan ka hadlayno fursadahan ayay ku shaqeeyaan lacagahan ayay lacag ku soo saartaan sidoo kale xitaa waxay jiraan dhulka gaalada ama dhankan galbeedka waxay isticmaalaan lacagta bangiga ay dhigtaan lacagtaasna way u siyaadaan taas marka waa xaraan islaamka marka waxaan oran lahay afarta fursadood Soomaalida inteeda kala duwan qaar u baahan jira baan filayaa waxaan leeyahay muuqaalkani maanta intaas ayaan jeclaaday inaan la wadaago sidoo kale waxaan leeyahay haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir walaal channelkan waxaan ku falaaqaynaa ama aan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu soo bandhignaa muuqaalo ganacsiga aad iyo aad ka kaalmeyn doona haddii aad ganacsada tahay iyo haddii aad doonayso inaad noqoto sidoo kale la wadaag walaalada una sheergeli si ay iyaguna muuqaaladan uga faa'iideystaan waxaan igaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh